صحافة غيبية كلا دوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ما أنت تاريخ متهاي تضوض بيشا قوبية طبنات لوكن يسقالية طبان كالفرقة فرتنيشنات فرقي ستبنات مدن قدومية مدن يال ترى كورم كوا كنتني يصدح مدنه فسح يجرو وصدح مدنه مغنى شهونا وطبان مدن قدومية مدن يال maanta oo taariikhdu tahay 7 bisha 2019 fadhigeena maantay wuxuu daaran yahay mooshin ka dhan ah gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdixakiin Maxamed Axmed oo ay ka soo gudbiyeen xildhibaanada golaha wakiilada waxa insha Allah la akhrin doonaa liiska xildhibaanada golaha wakiilada waxaana insha Allah hadii rabbi idmo warqada inoo akhrin doona xogayaha golaha wakiilada ku soo dhaw xogay bismillaahir rahmaanir rahiim mudanayaal waxaan insha Allah raacaynaa abraaci caadiga ahaa waxaan yeelanayaa insha Allah xildhibaanka si aan u hubiyo inuu joogo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowladda Puntland gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowladda Puntland oo xogayaha guud ee golaha wakiilada dowladda Puntland ujeedo mooshin xilka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed anagoo ah xildhibaanada hoos ku saxiixan waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa mooshin xilka qaadis gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed kadib markii uu ku tagrafalay awoodii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahayd xil gudoominta golaha wakiilada dowladda Puntland una ku dhaqmi waayay xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland isla markaana uu golaha awoodiisa uga faa'iideystay sida uu isagu jecel yahay qodobada uu ku tuntay waxaa ka mid ah qodobka 59aad ee dastuurka dowladda Puntland ee sheegaya hay'adaha dowladda inay ka dhaxayso wada shaqayn sharciga waafaqsan wuxuu golaha wakiilada dowladda Puntland xaruntiisa soo dhoobay maleeshiyo hubeysan oo soo ururiyay wuxuuna ku tuntay qodobka 55aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland farqadiisa koowaad oo dhigaysa ciidanka golaha wakiilada loo idmaday shaqada amni ee golaha wakiilada ciidan aan ahayn inaan la soo gelin karin golaha wakiilada ama la keeni karin wuxuu howlka golaha wakiilada la soo galay ilaalo hubeysan taasoo mamnuuc ka ah howlka shirarka golaha wakiilada sida ku xusan isla qodobka 55aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland farqadiisa saddexaad wuxuuna iska inantiray tala soo jeedintii guddiga amniga golaha wakiilada dowladda Puntland ee qodobka sare ku xusan si uu siiyo awoodda ilaalinta iyo hubinta in howlka shirarka golaha wakiilada laga ilaaliyo hubka iyo ciidanka wuxuu sidoo kale ku gafay marar badan kana bayray iskana indhatiray qodobka 50aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland ee dhigaya inuu xildhibaanku xaq u leeyahay dhexgal toosineed wuxuu ka baxay dhexdhexaadnimadii xubnaha marka ay dood socdaan isagoo xubnaha qaarkood siinaya waqti dheeri ah si ka baxsan qodobka 48aad ee xeerasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland farqadiisa labaad xarafka ba oo dhigaya in xildhibaan walba uu 3 daqiiqo doodista ku soo koobo wuxuuna si cad uga horyimid in xildhibaanada aan la fikirka ahayn isagoo xitaa dooda ka dhexgalaya
sidoo kale wuxuu si bareera ugu tuntay qodobka 69aad farqadiisa 3aad iyo 5aad ee xisaab celinta miisaaniyadda dhaqaale ee golaha wakiilada dowladda Puntland wuxuu sidoo kale adeecadda BBC-da ka sheegay dowladda Puntland inay listeen oo qaybsadeen 3 qabiil taasoo meel ku dhac ku ah sharciga iyo xaqa muwaadiniinta ee sinaanta xilalka dowladda waxaan akhriyayaa insha Allah xildhibaanada ku saxiixan xildhibaanka insha Allah magaciisaan yeelinayaa sida uu nidaamku yahay xildhibaanku markuu soo gudbiyo loo eego saxiixa ka yaala oo horey looga soo qaaday iyo inuu goobjoog yahay isla markaana oo xildhibaanku uusan xildhibaan kale markaas uusan wakiilan waxaan akhriyayaa insha Allah liiska ku saxiixan xildhibaanku inuu joogo waan hubinaynaa gacanta ayuu taagayaa mudanayaal sida nidaamku uu yahay sidaynu soo socono aad iyo mahadsantihiin xildhibaan Cabdicasiis Siciid Maxamuud mudane deji xildhibaan Jaamac Yaasiin Jaamac xildhibaan Raage Saalax Cismaan xildhibaan Daawud Nuur Muuse xildhibaan Daawud Nuur Muuse xildhibaan Cabdixamiid Sheekh Cabdisalaam xildhibaan Ayaan la Galan Guuleed xildhibaan Cabdixakiin Yuusuf Muuse xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Muuse xildhibaan Axmed Jaamac Diiriye xildhibaan Cabdiraxmaan Xasan Siciid xildhibaan Xaamud Ismaaciil Abshir xildhibaan Xuseen Yaasiin Xaaji Diiriye xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Sahal xildhibaan Faarax Maxamed Dalmar xildhibaan Axmed Yaasiin Cabdi xildhibaan Axmed Xariir Gaas Butaale xildhibaan Maxamuud Axmed Caalim xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab xildhibaan Aadan Yuusuf Aadan xildhibaan Cabdiraxmaan Muuse Jaamac xildhibaan Maxamed Axmed Cabdi xildhibaan Cabdiqaadir Xareer Xildiid xildhibaan Cabdullaahi Saciid Axmed xildhibaan Aweys Axmed Sardheeye xildhibaan Jaabiri Samatar Cabdiraxmaan Jaabiri Samatar xildhibaan Cabdirasaaq Xasan Ciise xildhibaan Cabdiqani Faarax Raashane xildhibaan Cabdixakiin Yuusuf Xuseen xildhibaan Xuseen Axmed Nuur xildhibaan Cabdiraxmaan Siciid Faarax xildhibaan Cabdisalaam Guuleed Siciid xildhibaan Axmed Jaamac Cabdulle xildhibaan Fuaad Abshir Axmed xildhibaan Maxamed Cabdi Warsame Weerow xildhibaan Muuse Siciid Xasan Ducaale xildhibaan Siciid Macallin Daahir xildhibaan Cabdikhadar Faarax Shaaciye xildhibaan Cabdiweli Yuusuf Warsame xildhibaan Sharmaarke Cali Cilmi xildhibaan Mursal Cabdi Farasle xildhibaan Nimco Cabdi Caarshe xildhibaan Cabdikhadar Cawil Maxamed xildhibaan Faysal Cumar Maxamed xildhibaan Cawil Xasan Daar xildhibaan Saleebaan Faarax Ciise xildhibaan Bashiir Askar Xuseen xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Saalax xildhibaan Mahdi Saciid Xasan xildhibaan Ismaaciil Cabdi Abtiile xildhibaan Cabdi Siciid Kafar dhammaan way wada joogaan mudane guddoomiye 49 mudane
ayaa ku saxiixan 49 mudana way joogaan gudoomiye kusoo dhawo qaadista gudoomiyaha mooshinka la soo jeediyey loo soo jeediyey gudoomiye Cabdixakiin Maxamed Axmed yaa qaba in mooshinkaas xilka qaadista loo gacan taago xilka lagaga qaado gudoomiyaha suuqa tirada يا ديدي يا كامصي maanta iyo taariikhdu tahay 7 bisha 2019 waxaan qirayaa mooshinkii laga keenay gudoomiyihii golaha wakiilada mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed in uu meel maray 49 kaas xildhibaan mooshinka soo gudbiyay ay u gacan taageen waxaan insha Allah qaban doonaa guddigii waxa ka aamusay 4 mudane waxa fadhiyay 53 mudane insha Allah waxaan qaban doonaa guddigii doorashada iyo habraaci insha Allah loo mari lahaa baan sameyn doonaa aad iyo aad mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم جميع قلها وكيلة iyo dhammaan xubnaha golaha wakiilada howlwadeennada iyo saxaafadda limarti sharafta salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan halkan ka akhriyo guddigii aan u qabanay gudoomiyaha golaha wakiilada doorashadiisa oo aan u astaynay khamiista dambe 14 bisha inay qabsoonto guddigaas kow Axmed Jaamac Cabdulle labo Jaamac Yaasiin Jaamac saddex Fuaad Abshir afar Axmed Xiriir Gaas shan Mahdi Saciid Xasan lix Axmed Cabdullaahi Yuusuf Qayro Xiriir Gaas baa loo jirkaas Yuusuf Yaxya Aadan Yuusuf Aadan todobada xubnood iyo xogayaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Xidig Warsame agaasimaha maamulka Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Maxamed todobada cisho baa insha Allah ay hawshooda ku soo dhameynayaan 14 bishana doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada qabsoomi doonta aad iyo aad baa mahadsantiin. Assalaamu calaykum.